maxaa dejiyey cadcadka caloosha xamar marka jowhar iyo baraaweba oona maxay ugu yeedhaan xamar jajab xamar jajab waxaa ka yeersiinaysa badownimada aysan garanayna meesha inay tahay meel archaeological historicalna ee ka hoose saro iyo magaalooyin qadiimi ah oo intaasoo qarni ka hor la aasaasay ama la dhisayba oo soomaalidu ogyihiin laakiinse iyaku aysan garanaynba talyaanigii markuu meesha yimina uu arkay inay meeshan tahay meel qadiimi ah oo historical wax badan laga faa'iidayo wuxuu la kulmay soomaalidii wuxuuna ku dhahay guryahan quruxda badan aad degan tihiin magaalada dhexdeeda waan u baahanahay inaad igala shaqaysiin oon dhulka hoostii baarbaaro dhulkana aan ka aasaaso caasimadii sidaas awgeedna waxaan u baahanahay administrationka inaan xagga ka dhigto caasimadda weliba caloosha gudaha xamar kuwii guryaha iyo daarta iyo taariikhda lahaaba markay diidmo adag siiyeen oona kuwii xitaa miyiga iyo magaalada ka baxsanba yimaadeen iyagoo waramadoodii sita u ballan qaadeen inay dagaal ka dhexayso iyagoosan laakiinse si fudud meesha magaalada uga beydheen markaasaa talyaanigiioo cadhoode ka damqaday inay soomaalidu ku diideen amarkii inay qaataan inay magaalada si fudud usoo daayaan ama guryahaas iyo dhulka wixii ka hooseeyaba ay qaataan ayuu ciidankii uu soo diyaariyey dagaal adag ku qaaday soomaalidii dagaal aada looga sheekeen oo labagoodlayaashii iyagoo wada hubkoodii falaadhii iyo waramadii sita ku dagaaltamaya oo weliba ku guulaystay inay ciidamadii talyaaniga ka qacan maroojiyaan hubkii iyo technolojiga ee sitay sida riflesko kale ee kuwa ku laayaan ee awood sare ku yeeshaan markii dambena dagaalkaas ilaa jeneraaladoodii la laayay oo dhulka la dhigay ee noqotay talyaanigii inuu cadcadkii arko iyagoo meel iska wada taagan oo dagaalka ka qayb galeen uu markuu u tagay dhahay war miyadsan soomaali ahayn ee dhaheen anaku soomaali ma nihin hindi ayaanu nahnay asalkeena markaas ayuu go-aansaday inuu wada caafimaadkooda jeegarayo labis u xidho uu ciidamada ku darsado dhaho frontigaad ka dagaaltamaysiin soomaalida waa ee iga qabanaysiin xagga hore istaag anna xagga dambe ayaan hubka kasoo ridayay beesha jareerweynena markuu u tagay ee ku dhaheen anakuna ma nihin soomaali ayuu u xidhay jaakadadii ka yaraday talyaaniga hubkana siiyey uu ku dhahay idinkana frontiga gala dagaalku wuxuu sii socdaba soomaalidu waxay ka naxday markii sirtoodii iyo godadkoodii la wada sheegay ee cadcadkiiyo jareerweynihii kasoo horjeedsadeen oo cidhiiri la geliyey ayay noqotay markaas inay miyiga u tagaan tolkoodii oo caano geel kasoo cabaan xaggana ku nastaan lacalla inay sheekadu mar uun bedelmato balse bedelka keliya uu talyaaniga sameeyey markii uu guulaystay guryihii odayaasha sharafta leh ee dhisteen ay lahaayeen wuxuu ku bedelay dharkoodii iyo guryahoodiiba nimankii kow qaawan wadnahooga iyo caafimaadkooga la jeegaranaya ee cadowgii soomaali ku noqdo kasoo horjeedsaday inuu u xidho dharkii soomaali ee ka tageen uu u labiso oona ay kala guursadaan ama talyaaniga uu guursado kuwii dagaalka ku hiiliyey talyaaniga sida jareerweyne iyo cadcadkiiba waxaasoo dhanna talyaaniga wuxuu u maray inuu dhulka xamar magaalada caloosha dhexdeeda iyo jowhar iyo banaadir iyo taariikhda leedahay inuu dhulka qadiimiga hoosteed u qodo uu galo uu ka baadho historica iyo wixii ka jiraba cadcadkuna in yaroo caafimaada iyo wixii soomaali lahayd ee sheegtaan kuna hoos gabadaan guumaystaha cusub ee waddanka yimi hase yeeshee labagoodlihii miigii u qaxay guuldaradii guul unbay ahayd ilaan waxaa ka dambeeyey haddii ay ogaan lahaayeen alxamdulilah bay odhan lahaayeen hanimuunkii kabacdi waxaa dhacday halaqa qabto ila shaqa meesha loo yimiye dhul iyo beer cabirkii kabacdina waxaa bilaabmatay ina dadkii la adoonsado nimankii soomaalida dagaal ku qaaday munaafiqnimada oo islahaa jubbooyinka hoose ninkaa lahaanaya waxaa lagu dhahayba meesha addoomaha ka ahaanaysiina dhulka beera muuska soo saara xabxabka talyaaniga aan u dirnee ruyadii iyo farxaddii cadcadka inay dumaali doonaan soomaalida iyo magaalooyinkoodii iyo calooshoodaba waxay ku dhammaatay markii lagu dhahay caagan qaatoo soo qoda dhulka hoosti iyo buuraha gala addoonsi uusan bidaadan adduunkan soo marinba ayay soo mareen markaasuu talyaaniga ku dhahay dhabarkiina iyo qacmihiina waxaa lagu talagalay keliya inaan lagu kiin addoonsado gala meesha xagguu talyaanigii ku faanaya 1900 siyonaalkiisa inay soomaaliya uga kheyr badan tahay bortugiiska wuxuu guumaysto dhan soo saarkooda oo cadcadkaa iyo jareerweyne keliyana ee noo shaqeeyaan sawirka hal qof oo madow oo soomaaliya kuma sawirna hadda cadcadkii markay qoraalka barteena Mussolini ayay u qori jireen dhulka adiga aska leh xamar cadde xamar jajab waa meeshaadii kaale anytime u baahan tahay adduunkii oo markii dambe ilbaxay oo soo ogaaday inay addoonsigu khalad tahay caruurtiina qaylinayaan addoonsiga ilaahay naga saar meeshan waa inkaar ayay talyaanigii bilaabay inay qoraan addoonsiga laga daayo bidaadanka Soomaaliya hal la fasaxo barwaaniga iyo cadcadkii jareerweynaha hal la daayo oo talyaanigu ha joojiyo guumaysiga boqolaal sano la isguumaysanayay oo la isbaabinayay laakiin Soomaalidu kolba waa soo durkayeen miyigii bay ka soo durkayeen ilaa aakhirkii caruurtii talyaaniga iyo caruurtii Soomaalidu wada ciyaarayeen ee isla yaabanaayeen ee ush isla dhacayeen marka qaarkoodna la leeynayo baciyalka talyaaniga markii shirweynaha Yurub ka soo baxay lagu go'aansaday in Afrika laga joojiyo guumaysiga xooga oo lagu bedelo guumaysi maskax ayay isku yimaadeen talyaanigiina go'aansadeen inay meeshan Soomaali siineen ee laakiin dadkan ay guumaysteen ee xoog ku qabsadeen oo dhulkana la shaqaystay intay wax ka qabanayeenba inay iyaga gacantooda ku wareejiyaan ee magaalooyinka iyo farsamooyinka wixii haysteen oo dhan iyaga gacanta ka saaraan sidaas awgeed lacala haddii maalin soo noqdaan inay haystaan
kuwii usoo laaban lahaayeen abaabana u furi lahaa saasaa markaa talyaanigii uu ku laabtay qorshihiisii markii hore inuu yeelo haddana inuu talyaanigii guursado raggoodu gabdhihii iyo dumarkii jareerweyne iyo cadcadka oo sidaa ku dhasheen qoomka cusub ee iska dhalka ee la dhaho madhamaato oo xilligii gumaysiga ka tegay qaarna in badan u kaxeeyay talyaaniga oo laakiinse aad arkaysa inuu midabkooga in yar oo dhiig soomaaliya ku jirin laakiinse bantuug iyo cadcadka oo talyaaniga ku milme wada yihiin 7,000 ayuu ka dhalay meesha qaar badan baa talyaaniga u raacay qaar badanna waxay ku hareen meesha markii xaaladdu 90kii qaraxdana waa laga kaxeeyay laakiinse waxaa lagu talagalay mar walba inay wadanka iyagu sheegtaan ee lahaadaan ee magaaladooyinkana dhahaan jajab weeye sababto waxa weeye meel archaeological aysan garanayn waxay u dumayso waxa weeye meel qadiimiya oona markii talyaaniga uu ka tegay ka dhaadhiciyay inay iyagu leeyihiin oo dhulkan xaq u leeyihiin ay weligoodba joogeen soomaaliduna yihiin etoobiyaan xabashiya maadaama talyaaniga uu dagaal la galay etoobiyaankii uuna dhahay waa cadow dagaalkii talyaaniga iyo etoobiya kala dhex marana hamoodi inuu keligii tegay wuxuu kaxaystay cadcadkiyo jareerweyne wuxuuna ku qabsaday ilaa iyo Eritrea waxaana hubaal ah inay sabab u tahay Eritrea iyo Oromada in laga helayo niman cadcada iyo jareerweynaha oo sidan u eg oo iyakuna xilligii talyaaniga gumaysiga uu kaxaystay oo u hiliyay oo garab siiyay laakiinse hindinimadii iska masaxaya carabnimo sheeganaya ama talyaani iyo Portugiis historigu waa taas sababtay cadcadka maanta u leeyihiin xamar jajab iyo anakaaba leh inay u necab yihiin una dafirayaan ragga Soomaaliyeed ee iska leh guryahaas quruxda badan ee ka dambeeya aysan meesha ahayn xamar jajab ee tahay xamar oo historically archaeologically u tahay meel qadiimiya u baahan in la ilaashado haddii laga gadi lahaa cadcadka waxaa laga hayn lahaa warqado dadkii ka iibiyey reerihii ka iibiyey laakiinse warqadna lagama hayo cidna kama iibin waxa kaliya soo dejiyay caloosha magaalooyinka waxa weeye gumaysigii waana cadow kula soo degay sidaasna ku dafiraya kuna necab una baahan inaad wax ka yeeshin